reer galmudug in general waxa weeye waa bixeen waana socdaan dhulkan ceel dheer iyo ciidamadii dhulkan ka yimid hadda waa bixeen ceel buur ciidamadii ka yimid iyo galhareeri iyo shalay bilowdeen biri qaybo kala tegi doona dadweyne ka degeen galgaduud iyo mudug qaybaheeda kalena dhuusamareeb shir madaxtooyada galmudug ka dhacaya oo madaxweynaha qorqoor uu shir gudoominayo ayaa madaxdii iyo xildhibaanadii iyo kulli iyo la wada tegey halkaasna abaabulkan sidii qayb looga noqon lahaa dagaalkana loo geli lahaa furimahaas galgaduud iyo mudug inta ka dhimanna dalka looga xoreyn lahaa kooxahan ayaa looga tashanaya marka anu waxaan qabaa arrinta uu sheegay walaalkeen Roble Cabdullaahi Roble arrintaasi sida hadda loo sheegay maahan dagaalka madaxweynuhu uu hogaamin doonaa qayb buuna ka yahay waana xamarna waa lagu wada hadlay waana lagu heshiiyey maalmaha soo socotana way caddaan doontaa haddana dee waxaaba lagu shirsan yahay madaxtooyadii waa looga shirsan yahay in furimihii galgaduud iyo mudug ka dhiman oo dhan halkaas la galo abaabulku wuxuu qayb ka yahay iyo diyaargarowgu dagaalka 70% abaabulka iyo diyaargarowga qaybka ah waad u jeeday shalay ciidamo hirshabelle ka mid ah maalmihii lasoo dhaafo oo dhan baxayay dadku dagaal diyaar uma ahayn in la diyaariyo oo weliba waqtigan kooban lagu diyaariyan runtii waxa weeye yani dadaalka dowladda iyo madaxda iyo madaxweynaha iyo dadaalkiisa ayay ku imaanaysaa maahane in loo diyaar garoobo dagaal oo dadku u qalab qaataan waqti dheer bay qaadan lahayd marka dadaan dagaal diyaar u ahayn oo loo diyaarinayo ciidamo iyo logistico iyo isku keenkeenid kala maqan waqti bay qaadanaysaa runtii laakiin waxaan rajaynaynaa in bishan October intaysan dhammaan galgaduud iyo mudug iyo kulli aagaas oo dhan shaqadii ay ka bilaabato culayska hiiraan haystana uu ka dulqaadmo dee shabaabkaas hadda meeshaas ku dhex jirana hadda waxaad moodaa inay go'doonsan yihiin hadda ciidamadan shabeellada dhexe gaaray oo cadale iyo xawaadle iyo dhulkan hadda maanta la qabanayay iyo shalay haddii ay ku siqaan waxaad moodaa in shabaabka gudahaas ku jiraahay dad go'doonsan ay noqon doonaan marka u dambaysana waxaad ogaan doontaan inay soo dhiibi doonaan ayna ka carari doonaan jidkooda iyo hubkooda si uun ay uga farxan doonaan laakiin nimankaasi waa niman karfantoodii wato aan ka bixi doonin meeshaas haddii mudug aan ogahay dhaqdhaqaaq fiican inuu ka socdo xardheere ku wajahan galgaduud oo haddeertaan dhuusamareeb oo hadda shirkan loo fadhiyo oo ceelbuur iyo halkaas in looga dhaqaaqo ay tahay haddii ciidamadaasi ay dhaqaaqaan ciidamadan shabeellada dhexana ay operationkooda sii wataan oo ayaguna dhaqaaqooda hore u sii wataan oo culayskan aadan yabaal iyo hiiraan hadda dul saaran ay ka fujiyaan oo hadda xildhibaanku arrintuu sheegay waa run dalku waa wada sensitive waa wada qabaa'il xawaaluhu hadda haddii deegaankooda markay xoreystaan cadowgu wuxuu u fariisanayaa nus kilomitr hadhowtana qabiil baa laga yaabaa inuu yidhaahdo dhulkeennii baa qabiil kale soo galay marka arrintaas iyadoo laga fogaanayo ayaa hadda hal mar la isla jaan qaadaya waxyaalahan guushuna waxaan isleedahay mar dhow deegaamadaas waa laga dareemi doonaa